بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka saadka aakhiro. qisadii aynu ku soo qaadanay channelkeenani waxay noo mareysay qaybtii labaad oo ku dhamaatay gabadhii walaashan heeday soo muslintay ee Raxma oo masaajidka Anwar tagtay. haddaba waxaad gudoontaan qaybtii saddexaad ee qisadaasi. Raxma waxa ay jiray xilliga aan masaajidka Anwar ee magaalada Addis Ababa aan gaaray waxay ahayd xilliga salaada casr. waxaana socday aadaanka salaada casr oo muslimiinta way dukan rabaan. aniga oo sarwaal xidhana oo ay timaha ii qaawan yihiin ayaan orod ku galay masaajidka markaas ay rag masaajidka albaabkiisa ku sugnaa iga hor istaageen in aan gudaha u dhaafo. markaas aan ku iri sawtan muslimiinta la lahaa waa dad wanaagsan oo dadka si wanaagsan ula dhaqmo. waxaan u sheegay in aan doonayo culimada in aan wax weydiiyo. markiiba imaamka masaajidka Anwar Sheekh Taha ayaa i arkay oo ku iri soo daaya gabadha aan aragno waxa ay doonaysay. sheekha hortiisa ayaan fariistay waxaana dhaxmartay sheekadan. adiga maxaa dadka hortooda u fariisatay ayaan weydiiyay sheekhi. wuxuu ugu jawaabay imaam ayaan ahay oo salaada ayaan tujiyaa mu'miniinta masaajidka ku dukanaysa. wuxuu ugu yiri dalku soo hal madaxweyne ma hogaamiyo. ha ayaan ku yiri islaamkana arrin walba hal imaam ayaa hogaamiya ayuu ugu yiri. waxaan weydiiyay idinka hadda yaad u dukanaysaan ma masaajidka ma gogasha taala mise wax kale yaad u dukanaysaan. Sheekh Taha wuxuu ugu jawaabay annagu waxaan u dukanaa Allah oo kaliya oo ay jirin cid wehelisa aan la dhalin ayuu igu yiri. annagu haddaba ma khaldanahay ayaan ku yiri. su'aasheedii ayuu su'aal uga jawaabay ugu yiri maxaa tahay adigu. waxaan ahay ayaan u sheegay in aan gabar Kristaan ahay. waxaan ku yiri haddaan Kristaan ahay ma khaldanahay. markaasuu sheekhi ugu yiri haa waad khaldantihiin. dhagax uu dad sameeyay ayaad caabudaysaan waxna aan idin qaban karin ayuu igu yiri. waxaan ku yiri anigu hadda ma khaldanahay. haa adigu weliba waad khaldan tahay. markaa wuxuu igu yiri adiga isfiiriyo sida aad u labisan tahay timaha kuu qaawan dhar jirkaaga muujinaya ayaad xidhan tahay markaasaad weliba masaajid soo gashay intaan hore kortoodan aad fadhida. labiska ayaa kaa khaldan oo diintayada dumarka inay cawradooda muujiyaan ama baneeyaan ma ogola. gabdhaha muslimaadka ah way xijaabtaan. markaasaan ku yiri waa sax inaan khaldanahay khalad inaan galayna waan qiranayaa hal iga raali ahaado balse inaan su'aalahan ku weydiiyo ayaan u yimid. wuxuu igu yiri dadaal insha Allah waad soo dhowdahay ilaahayna in uu wadada xaqa ah kuga hogaamiyo ayaan rajaynayaa. waayahay ayaan ku yiri aniga oo xishoonaya ayaan masaajidkii ka baxay. kadib maxaa dhacay kaniisadda ayaan ku noqday. waxaan baaray taabuut ama taaboot waxay u yaqaaniin oo aan markaasi caabudno sanad walbana loo dabaaldego. waxa aan u dabaaldegnana weli maanan arag waan iska aaminsanayn oo kaliya sanad walbana waan u dabaaldegi jirnay. haddaba iyadoo cidna la joogin oo kaniisadda ku suganahay ayaan sanduuqii furay si aan u arko waxa ku jiro balse waxaan ku arkay waxaan aad ula yaabay. waxa ku jira sanduuqii dhamaa ee aan caabudaynay macatab dahab ka samaysan iyo sawir sanam ah oo ay Maryam ku matalayaan oo kaliya. baadaygi wax barayay ayaan u yimid waxaana ku idhi waxa aad diin nooga dhigayseen ma waxana ayaan ku idhi. markaasuu intuu xanaaqay igu yiri shaydaanka muslimiinta ayaa ku taaban rabo. anna si cadale ayaan ku idhi maya ima taaban rabe waba i taabtay. markaasaan wixii qalab aan kaniisadda ka hayay oo dhan faraha ka saaray baadarigi kana soo tagay kaniisadii iyo wixii diinta Kirishtaanka la halmaalay oo dhan. waa hagaag qaybtii saddexaad ee qisadii taxanaha ahayd halka ay noo joogto waa inoo qaybta afraad iyo channelka saadka aakhiro insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد